وحيانا فرصة دي لهلو وحاول ما ليس دادكني إن نبكي لصوم مريبا يبعتني دنبقو أو كاني إننا حصوصنين مركز أسوي حلوة نقمايا سيدا مثلا لقى عركو أما التلفزيون هذا أما بنانا هذا وحانا جايز كخدمايا نقمدا ومضه إني كلا دويهين قفك مسلم كعدقن كيسو وكدوين قفك مسلم كعين كمسلم كعين وحيابا سي عايوة ومثلا دليرة ذي وحيابا كسابسان وكذا يعني أي هودو ذا راعين أو سير ربان أو نقمايان أو دير ربان جدك يسكو قبسنايان أو أي جماعة يسجيدايان أو يسرون كنايان أو دير ربان سير ربان يسكو سمينايان هدابا أي يسحوقين أو يسوقليهم بعنا واحد باللوار كيني كالجر ساو سميسن إنه كاملين إنه أمدنا وأمد محافظة وأمد دين له وأمد دقن له وحي نوع عاصو كلا غريب أيوين وياه مركز دين السوقلي واحد غريب وياه dadku waa inay arintaasi yaani raayul caamku waa inuu diido arintaas ayada ficlan dareen uu jiraa oo hadda mesela magaalada Muqdisho meelaha qaarkood waxa laga sheegayaa yaani dhalinyaro si aan shuxuma ah oo asluubta wanaagsan ee dhaqankeena iyo diinteena aan u dhaqmaynin oo mesela xeebaha oo kale yaani si yaani qaaqaawani ah ama isqa qabsasho ah ama noocaas oo kale oo dad badan yaani hal qof ma laba qof ma ay ka sheekeynayaan ilaa marka dambe ay dadka qaar u qaataan inay bisan caadi iska tahay oo bilowgii hore iyo dadku dareen waxa ku jira marka arkaan qof yaani aan dhaqankii ilaalinaynin ama ummadiisa diinteeda aan u ilaalinaynin dadku ay markiiba soo tufi jireen oo diidi jireen hadii laakiin wixii la isku wadwado oo lagu celiyo marka dambe caadi iska noqonaysa hadda koora waxa la yiri islaana wiil oo ninkeedu dhalay oo laakiin bax kale ya odag intuu dhintay ya waxay tiraan isguursano markaas wuxuu ku yiri san isguursanayna ma banaana sharcan ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء القرآن كساس آباء إسلام وجورسدي هو ينقطع ما سال أنسو جورسدينا ده كان لا يابا واحد جرا ما وحاس واحد هذا محمود أنا كل شيء تسلم كسينا ناف حوله أي مقارك كبحس مركز يترعال كلا صور أبي ناف أو مقار عن لهين نحن نقول ناف كسوة كان واحد جدودن أو مقار عن لهين وهرب السعودة واي إلا لما جوري عمله نافك مالك كواد نافك عالكوا يبادي dadkii oo dhan daawashay u soo dhaqaaqeen war kaalaya maanta wax la yaab la dhacay maxaa jira neef aan maqaar lahayn oo socdo oo biyo la cabsiinayo oo ceelka loo soo arooriyay ayaa meesha intaan dadkii oo dhan way yaabeen waa la iswaraystay war neefkan muxuu yahay war oo maqaarka laga bixiyo oo san yaani say ula yaabeen si la yaab la yahay bas dhimale qofkii wata neefka uu iska soo ceshtay markay dadku arkeen war ana watee maqaarkan ana ka soo bixiyay maxaa ka rabtaan waa ka uu nool yahay muna dhimin biyaan rabaa inaan siiyo biyaha iyo cabsiye haye biyihii waa cabay neefka uu ka haystay uu la hoyday maalinkii labaad ayuu haddana soo celiyay ceelkii neefkii oo sidii oo maqaar aan lahayn dadkii in badan oo shalay aragtay waxba dan kama leh qofkii shalay aan arkin oo maanta ceelka ugu horeyso ka un baa yaabay war waxan muxuu ahaa war wax moog shalay la keenay kana wax cusub ma shalay inta joogay bas haddana waa la celiyay neefkii maalin saddexaad iyo maalin afraad markii la soo arooriyay maalmihii damcid fiirsaa la waayay maxay dadku dhan way arkeen qof kastoo arkay muxuu leeyahay allah مقار لاويه وهي كان اسكت في مقعد وكيل مقار كان بحيي عادي يسكت نقطة وحن كوضع معناه ومدنا الصومالي ده dhaqamada banaanka inooga imaanaya oo midna dhalinyarada xeebaha markay joogan ay gacmaha isqa qabsanayaan ama waxyaabahaas ay sameynayaan marka bilowga arrimahaas la arkaayo waan la yaabin ruuxan maxay ahaayeen maya banaanka ka imaadeen oo saan ay arki jireen laakiin waxayna garanaynin xeebaha oo la jiijifanayo oo banaanka Yurub laga imaanayo dadkaas waxa ku yar baan qoraxda in arkayni qoraxda ku yar marka maqaarkooda wuxuu u baahan yahay marka inay qorax si maqaarkooda uu qoraxdaas u qaato banaanka u jiijifaan waxayna garan marka dhalinyaradan waxay u maleeyay ilbaxnimo inay tahay dhalinyaro banaanka jiijifata ilbaxnimo ma waa qorax raadin xamara joogta 40 darajo maraysa qoraxda soo dhigo kaasaadi marka waxa keenaya oo duruufti xagga ka jirta inta kama jirto wadanku kulul yahay ilbaxnimona ma aha in akhlaaqdi laga tago banaan la jiijifto marka waxyaaba noocaas oo kala oo dhaqankeena ka duwan yaani inayna aan ogaano dhaan war waxaan inaga dhaafa yaani muslimaan nahay wixii dambi oo diinteena ay ogolaan hadii la sameeyo nolosheena ayaa halaabaysa intaan aakhirada la gaarin soo marabtaa inaad noolaataan oo nabad aad heshaan nabaddu waxay ku imaataa in yaani dambiga la iska daayo hadii dambi la sameeyo dambigaas la sameynaayo ayaa nolosha halaynaya saas ilaahay wuxuu yiri wadaru ka taga dhaafa wadaru iska daaya ظاهر الإثم دنبك كان موغضة وباطنه يكن قرصن
إلا الدنبي لوضع بين نقون كران وحب إلهي رالي كاهين ولا سمينا والدنبي قار دad kamida banaanka ku sameynaayo wax muuqdo noqonaya oo ma qarsanayaan kuwana waxay dhaan dadku in arkine aan la dhuumano oo meel cidla aan la galno markaas ay meel cidla la galayaan ama hotel la gal ama banaanka la soo istaag ilaahay agtiisa waa isagu mid sawaa minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqfin bil layli wa sari'un bin nahar qof yani habeen la dhuuntay iyo qof banaan la soo istaagay maalin cad ilaahay agtiisa waa isku mid ee dambiga iska daaya wadaru daahira rasmi wa baatina hadda iska day weydaan in alladheena yaksibuna al-ithma kuwa dambiga sameeya sayujawna ma kanu yaqtarifun waxana ay kasbanayeen ee dambi ah waa laga abaal marin doonaa taas waa mid aakhiro qofka haduu zinaysto ama khamra cabo oo ama uu la dhuunto ama uu meel la galo yaani sayujawna ma kanu yaqtarifun waxa ay kasbanayeen waa laga abaal marin doonaa taas waa tii aakhiro laakiin aakhiro intaan la gaarin ka hor adduunyada maxaa laga helayaa adduunyada waxa la helayaa horta inay nolosha isqaban weydo oo dambiyada dadku qaarkood ay sameynayaan inta aan sameynaynin xataa way saameyn doontaa maxaa yeelay dadku isku hal doonayay saarayeen saas ilaahay wuxuu yiri wa idha aradna an nuhlika qarya hadaan rabno inaan magaalo halaagno ilaahay haduu doono inuu magaalo halaago yani magaalo waxa laga wadaa dadkeeda ilaan guryaha maana waa dadka wax dambiga sameynayeen wa idha aradna an nuhlika qarya hadaan doono inaan magaalo halaagno amarna mutrafiha kuwooda xoolaha haysta ee loo barwaaqeeyay ayaan daacada ilaahay faraynaa markaas daacada ilaahay ma qaadanayaan ilaa maal bay leeyihiin maalkooda ay ku tumanayaan oo xumaan ku sameynayaan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha faasiqnimo daacada ilaahay oo laga leexdo ayay sameynayaan ilaahayna wuxuu iska daayo xumaata daacada ilaahay soo gala fisqiga iska daaya markaas ilaahay annaga adduunyada xogaagan aan haysano inaan ku raaxaysanaan rabnaa ayay ka taagan tahay raaxaysiga oo xaaraanta ah oo la sameynaayo wuxuu sabab u noqonayaa raaxaysigan in la waayo oo la halaagsamo intii sameynaysay iyo in kale xataa aan sameynaynin oo dhibkaas agtooda lagu sameynayay inuu saameyn ku yeesho markaas waxa idaaradna nuulika qaryatan amarna mutrafiha kuwada loo barwaaqaan farayna fa fasaqu fiha faasiqnimo ayay sameynayaan fa xaqqa calayha alqawl hadalki ilaahi ee ahaa dadku haday xumaadaan in nicmada ay haystaan laga kala daadiyo ayaa ku waajibaya fa xaqqa calayha alqawl kadibna fadamarnaha tadmira magaaladaas waan baabi'inaynaa marka inaga hadda tusaale iyo for example ma u baahnaba maxaa yeelay bal odayaashii hore weydiiya beledkan soo ahaan jiray meel kasta oo xumaatada ay ugu badnayd ama ha ahaato meeshii ribada lagu qaadan jiray bangiga ribada isticmaali jiray ama ha ahaato hoteeladii kalaabyada ah oo lagu tuman jiray say u ekaadaan feeriyad meeshii dembiga lagu geli jiro dhan way ka foolxun tahay meelihii kale marka dulmiga la samaynayo dembiga la gelaayo wuxuu baabi'iyaa nolosha dadka marka maxaynu u baahannahay isbeddelka aynu rabnaay waa isbeddel nololeed waa isbeddel fikri waa isbeddel manhaj ma isbeddelku hebela meeshan ka wareegay oo hebela meeshan imaaday kana laga qaaday oo kana loo dhib arintu ma aha waxay tahay systemka ama habdhaqanka ummadda in la bedelo fisqi iyo tumasho iyo xumaan iyo diin la'aan iyo diin la dir iyo diin cay waan soo aragnay maxaynu ka dhaafnay burbur iyo halaag iyo rafaad macaamiil ku soo dhawow bangiga caalamiga ah ee IBS Bank bangiga IBS wuxuu ku soo kordhiyay adeegga lacag la bixista casriga ah ee ATM haddaba si aad u isticmaasho IBS ATM fadlan raac tilmaamahan ugu horreyn geli mastercard-kaaga halka loogu talagalay dooro luuqadda aad rabto inaad ku isticmaasho tusaale ahaan English ama Soomaali si taxadar leh u geli lambar sireedkaaga hubso in qofna ku daawanaynin inta aad gelinayso binkaaga kadibna dooro lacagta aad rabto inaad la baxdo iska hubi inaadan gelin in ka badan xaddiga lacageed ee kugu jirta koontadaada dooro haa haddii aad u baahan tahay inaad hesho rasiidkaaga kadibna la bax kaadhkaaga iyo lacagtaada sidoo kale waxaad dooran kartaa cadad kale si aad u geliso lacagan kuu muuqan adigoo raacinaya eber ama dooro adeeg kale si aad u aragto haraagaaga kadibna dooro haa haddii aad u baahan tahay inaad hesho rasiidkaaga mahadsanid macmiil